السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وداني iyo mar labaad maanta waxaan rajeynaynaa markii ugu horeysa Ramadaan Kariim oo maalintii ugu horeysa Ramadaan Brito Ramadaana caawan waxaa la tagi doonaa taraawiixda ahoobna codkayga maqlaysaan mayga wali inuu codkayga gaabiyaan kale maqaloobo laakiin insha Allah taala we will go the way it is waxaan ciwaanka ku aragtaa waxaan ku arkaysaan Ramadaan Kariim oo macnaheedu uu yahay Ramadaan maalintii ugu horeysa soo dhawaada annagoo bilaabi doona taxanihii اسبوع والبا مالين والبا inaan idin soo gudbino taxaniga ku saabsan sida online ka lacag looga sameeyo sida xagga ka aragtaan lacag ka sameeyo CJ Dropshipping 2026 ka dariiq ugu fudud ayaan gudaha u galaynaa okay annaga waxyaabahan horaan u soo baarnay marka CJ Dropshipping joogto dadyo fara badan ayaan soo wajiyay marka ugu horeysa haddii aad rabtid inaad Mareykanka ka shaqaysatid waa inaad eegtaa barta ay ku qoran tahay go ana global kadibna waa inaad ka doorataa United States marka United States ka dooratid waa inaad raadisaa meelaha United States waxyaabaha ka socda okay top rate always naxsuusno waa inaad fiirisaa waxa loo yaqaan top trending productiga waxyaabaha socda waxyaabaha super deal iyo bla bla isku top trending marka ku dhafatid waxa ku soo baxaya waxyaabo fara badan annaga sida hadda alaabtan meesha aan ka helnay maantadan hadda soo qaadato alaabtan waa arkaysaa alaabtan waxa la iibinayaa 0.74 to 574 waxay taalaa Mareykanka oo America marka xaga ku dhafato waxa arkaysaa alaabtii inay tagtid martatan loo yaqaan waxaan aragnaa alaabtan 388 noocan bluega in la iibinayo noocan kalena waa out blackan in la iibinayo intaas pinkigan intaas so haddii aad ku dartid waxa loo yaqaano fiiga oo markaa asiga lagu xisaabi doona waxa uu noqon doonaa $84 $2 iska dheh alaabtan waxay kugu tagi doontaa $6 halka xabo haddii aan eegno bartii loo yaqaan eBay maxaan ka aragnaa faa'iidada ku jirta halkan waxay tahay yaas alaabahan iibinaya okay let's go so America waxaan arkaynaa eBay dadyo fara badan inay alaabtan iibinayaan labada qofood ugu horeeyay ugu horeeya waxaan aragnaa China carqalada kala jirtana marka aad iishay ka soo qaadisid CJ Dropshipping carqaladeedu waxa kamid ah qofka asigoo jooga Mareykanka ayaa waxa uu soo saaraysaa waxa loo yaqaan China okay dariiq loo maraa jir waa inaad software kala isticmaashaa laakiin hadafkan hadda u socono waxa ay tahay waa maxay qofka kan imisoo iibiyay wuxuu yahay US wholesale buu leeyahay 1684 to 1784 plus waxay wada muuqataa alaabtan qofka kan inuu iibinayo $22 marka shipping lagu daro okay so marka xaga ku dhufano waxaan eegaynaa qofka waxa uu iibshay America waxaan aragnaa inuu hal xabo iibiyay halka xabo uu iibiyay 1684 plus marka lagu daro waxa loo yaqaan 452 waxa uu ninkan ku xisaabtamaya $21 alaabtan arkayno waxa lagu soo qaado waxa ay tahay 389 plus 80 adiga $6 minimum okay oo shipmentiga goormay u tagi doontaa waxay u tagaysaa 3 to 8 days 38 halka xabo qofkan waxa uu ka faa'iiday haddii aan eegno xisaabta aan ka eegno bartatan loo yaqaano RDS qofka alaabta waxa uu ka iibiyay $21 okay macal fiiga eBay marka laga jaranayo hadda xisaabada shipping no 16 something $16 baan leenahay shippingkan waxa uu lahaa waxa loo yaqaano $4.50 ka dheh shippingkiisa alaabtana costiga alaabta ay joogtana product cost waxa leenahay $6 marka kadib promotion aan isticmaali doona promotion waxaan leenahay inaan dhihi doono $3 ka dheh promotionka so alaabta faa'iidadeedu qofku waxa uu yahay inuu ka faa'iido $10 iyo 16 cent marka inta aad macal fiiga macal waxa dhan laga bixiyo okay so you have to understand this game how it works qofkan waxa uu maantadan guriga la tagay qofkan aan arkeen waxa uu guriga la tagay waxa kan loo yaqaano $10 okay he just went $10 haddaan gudaha u sii galno aan eegno dadyo fara badan way jiraan ninkan waxa uu iibinayaa $30 uu iibinayaa asna laakiin waa another level kale waxuu muusan iibin so waa qof cusub 15 wuxuu haystaa waxa loo yaqaano 15 viewers ama 15 qofood laakiin gudahan u sii galayna waxaan eegaynaa dadyo kale inay iibinayaan waxaan aragnaa nin kale inuu xag iibinayo kulligoodna waa isku sawir okay kulligoodna waa isku sawir waa ka duwanaan kartaa sawiradan haddii aad taqaano sida alaabahan ay u shaqeeyaan okay xaggan aan ku dhufanayna ninkan aan eegayna intuu iibiyay asna wax ma iibin so you need to move around waa inaad eegtaa inta qofood wax iibisay I know mid kale aan eegay ninkan China ninkan 16 ninkan 30ga I believe ninkan China joogna inuu ka iibiyay asagana expedite China $2.22 waxa uu ka iibiyay 1098 taa xaggan isku dartid waxay noqonaysaa ninkan inuu alaabtan ku iibinayo $13 wax la jiro okay so waxaan eegaynaa $13 wax la jira inuu ninkan ku iibshay alaabtan okay 13000 haddii aan dhahno shippingkiisa wuxuu dhan shippingkiisa ninkan waxa uu marayay $2.25 okay shipping costiga waxay ahayd $1.89 maadaama $6 xaggaan saarno waa ka saaraynaa
okay alaabtu waxay ahayd $389 waxayna xaggan shippingka costiga $89 plus fee so ninkan asiga China jooga alaabtan wuxuu ka qaatay $6.87 okay ma run baa ninkan inuu China joogo plus fee waxaan ogaanaynaa inuu China joogo iyo in kale si taas aad u ogaato dadyo fara badan ardaydan waxaan ku barnaa inaad qofka eegto meesha uu joogo iyo waddanka uu ka soo jeedo waxaan arkaynaa qofka kan inuu joogo United States sababta aan idiin sheegayna caqabadahan keena waxa ay tahay caqabadaha ugu xun oo arrimahan ay ku yimaadaan waxa ay tahay qofka kan haddadan eBay waxa ugu qoran inuu joogo China okay xagga kan waxa ugu qoran inuu joogo China Hoshangu meel la yiraahdo laakiin haddaan gudaha u galno waxaan xagga ka cadeynaynaa inuu joogo qofkan Mareykanka maxay tahay sababaha caqabadahan keeni kara okay la soco videoga xiga okay ma haddii aan awoodi kar weyn aan ku soo tabino waagaag videoga waxaan ku soo baranay inuu ii sheeg ninka kan China joogay ama haddii rufcadii koowaad xaggana waxaan ku aragnaa ninkan inuu 2 xabba iibshay markaan xisaabana waxaan ogaanay ninka 2 xabba inuu ka faa'iido waxa loo yaqaano $6.87 each xagga uu guriga la tagay 15 wax la jira laakiin caqabada jirta waxa ahayd ninkan waxaa noo soo baxday inuu joogo Mareykanka laakiin listigiisa inay ku qoran tahay inuu joogo China sidee ku dhacday okay maxaa keenay caqabadan inta badan caqabada waxay ka timaadaa mar alla marka aad alaab ka soo qaadaysid bartan loo yaqaano CJ dropshipping automatically waxa uu leeyahay markaad alaabta ka soo qaado store-kaaga ku xirato wuxuu sheegayaa inaad joogto China okay marka sidee taas looga baxaa iyadana taas waxa looga bixi karaa waxa ay tahay only hal dariiq kaliya aad uga bixi kartaa waa inaad haysataa software-kan RDS iyo software kale oo la halmaada marka kadib kuwa waxay ku fududayn doonaa inay ku bedelaan waxa loo yaqaano barta aad alaabaha aad ka soo geliso okay barta aad alaabaha ka soo geliso ayay ku bedelayaan maadaama aad software-kan isticmaalaysid CJ dropshipping haddaad u baahan tahay fadlan inaad software-kan iibsato linkiga xagga hoose ka daawo linkiga xagga hoose ka iibso maadaama annaga aan videogan free idinku soo gudbinayno si aan affiliate ama aan free ugu helno okay so caqabada imaan karta waxa ay tahay markaad RDS soo gelisid waxaad ka bedelaysaa zip code-ka iyo location-ka aad joogtid waxaad gelinaysaa location-kaaga markaa kadib waxay noqonaysaa qof Mareykanka jooga okay sida ninkan oo kale ha noqonin adoo Mareykanka jooga inaad China joogto sababtoo ah waxa ka baxay waxa ay tahay arqalada ku qaban doonto waxa ay tahay value-ga fiir ninkan waxa uu iibinayaa $10.98 to 17 ninkan waxa uu iibinayaa 16 to 17 laakiin Mareykanka dadka intooda badan waxa la dheer yahay lacag ku dhawaad ilaa $10 ama $5 dadka intooda badan kaama iibsanaya haddaad China joogto way kaa baqaa waxay dhahaan loongay qaadanaysaa okay waxtaas waxay kugu noqonaysaa arqalad kale oo dheeraada so say taas marka aad uga taxadirto waxa habboon inaad software-radan shaqada kuu fududaynaya waa inaad qabato haddii aad videoyadan iyo video fara badan aad u baahataan fadlan nala soo socodsiiya si aan video fara badan idin soo gudbin waxaa lagu jiraa bishii Ramadaan qeyrka badnayd koorsooyin fara badan waa soo wadnaa Amazon TikTok sida lacagaha looga sameyn lahaa meelaha la halmaalo okay haddii aad macluumaadyada jeceshahay fadlan videogan iyo videoyada xiga meel dheer gaarsiiya si aad u ogaataan waxyaabaha kale aan soo wadno fadlan subscribe-na ku samee linkigana maxaa la dhahaa gambaleelkana riix ama ringiga waxa loo yaqaano si aad u ogaato videoyada bad kale aan soo dhigno inay yihiin kuwa wax ku oola markaa kadibna aad uga faa'iidaysato fadlan message-kana noogu sheeg inaad u baahan tahay more videos waxyaabaha ku saabsan iyo inaad u baahan tihiin isha koorsooyinka aan soo wadno inaan ku darno waxyaabo dheeraada hadda waxaan soo wadnaa Amazon waxaan soo wadnaa waxa loo yaqaan TikTok shop sida lacag looga sameeyo ama affiliate TikTok sida looga noqon lahaa labadaas shay ayaan soo dhigi doonaa waa aragtaan dadyo fara badan oo ka hadla annagan xaggan waxaa idiin soo dhigi doonaa macluumaadadaas wasaad wadani asxaabtiisu idin maalintaadi waxnaad Ramadaan Kariim